السلام عليكم. cashirkeena wuxuu ku saabsan yahay Flux Box ayuu ku saabsan yahay. sidaa darteed waa maxay Flux Box? ardayga CSS ka baranaa Flux Box inuu barto aad ay muhiim u tahay oo si fiican u bartaa. Flux Box waa magaceeda loo yaqaan waa Flexible Box ayaa loo yaqaanaa. magaceeda loo yaqaan Flux Box waa layout waaye. magaca kale la dhahaa waa flexible box aa la dhahaa. so waa layout waaye. elementiskaada aad order ugu samayn karto. order waxaa ka wadaa micnaha elementiskaaga jihada rabto ka dhigi karto, haddaa rabto horizontal ama haddaa rabto vertical ka dhigi karto. so marka Flux Box waa layout waaye oo ka mid ah layoutyada CSS-ka. Flux Box ka hor CSS-ka waxaa la isticmaali jiray blog la isticmaali jiray, waxaa la isticmaali jiray sidoo kale table la isticmaali jiray, inline la isticmaali jiray. marka hadda Flux Box CSS-ka Flux Box la isticmaalaa layout kan oo layout micnaha cajiib ah. so marka waa layout marka micnaha aad ku kala qaabeyn karta ama ku kala habeyn karta hab order ah adigoo micnaha horizontal ka dhigaayo ama vertical ka dhigaayo. so marka CSS-kaaga ama elementiskaaga marka wuxuu ku suurgelinayaa Flux Box inaa elementiskaaga row ka dhigtaa ama column ka dhigtaa. goorma la isticmaalaa Flux Box? waxaa isticmaalaysaa marka elements badan haysato oo elementiskaas badan aad rabto inaad u sameyso order u sameyso, hab order ah aad u sameyso. marka in conceptiga oo kala dhaca filaa Flux Box. Flux Box waa layout waaye ka mid ah layoutyada CSS-ka loo isticmaalo elementiskaaga inaad ku kala habeyso ama order ahaan micnaha vertical ka dhigtaa ama horizontal ka dhigtaa. laba qaabon u shaqeeyaa, laba direction u shaqeeyaa, laba direction oo ah horizontal iyo vertical, ama column iyo row u shaqeeyaa. labadaas micnaha jiho u shaqeeyaa. so in micnaha elementiskaas ku kala qaabeyso oo kala habeysa loo isticmaalaa in si fiican loo fahmaa filaa micnahaas guud. insha allah gudaha u galaynaa, waxaa soo kacsanaynaa editorkeena soo kacsanaynaa insha allah. editorkeena aan soo kacsano. editorkeena soo kacsanay. editorkeena soo kacsanay waxaa abuuray file oo waxaa abuuray HTML ah iyo file CSS ah. laba file HTML iyo CSS abuuray. so sidaa darteed marka presentationkeena aragno. marka waa kana laba properties jirto oo la isticmaalo Flux Box markii la isticmaalaa. so labadaba waxay kala yihiin container iyo items laga lahaa. container kan waa waxaan guud ee kooda dhex jiraan waxaa la dhahaa container. items kana waxaa waa shayasha ama itemsyada ku dhex jiro container ka dhexdiisa ku dhex jira waxaa la dhahaa items la dhahaa. so in ay kala cadiina filaa container-ka waa weelka guud ama sanduuqa guud ee ku jiraan waaye. so items kana waa elementiskii waaye oo gudaha ugu jiro waaye. so marka waa kala weyneyn kartaa oo items-ka hadda dhaxaa weyn, sidoo kale labada geesaha ka jirtana waa yaryihiin. marka sidaa rabtaa ka dhigi kartaa adigoo micnaha order ahaan u sameynaya ama horizontal ama vertical. so inaad fahanteen filaa. basically Flux Box wuxuu ka kooban yahay micnaha two levels waa propertieska, two level properties waaye. so Flux Box container iyo waxaa la kala dhahaa Flux Box item la kala dhahaa. so labadaas inaad kala fahantaan la Flux Box container. containerka waa guud, sanduuq guud ay ku dhex jiraan waaye, sida devko kale waaye. so Flux Box items-kana waxaa waaye elementisyada gudihiisa ku dhex jiro ama itemka devka gudihiisa ku dhex jiro waaye. marka container properties ka arkaynaa. container properties
okay container properties ka waa kana Flexbox container properties ka micnaha in aad ka dhigi karto row inaad u samayn karto Flexbox-kaaga ama row reference aad u samayn karto oo aad kala hormarin karto hadda order waaye fiiriya row markuu yahay a b c waaye so haddaad fiiriso row reference markuu yahayna gadaala laga soo bilaabay a b c c b a waa marka sidaasoo kaleeto waa column markaa rabto ayadana a b c column ah waaye oo vertical ah column oo marka row reverse wax kale ma aha ama column reverse wax kale ma aha reversiga cagsi waano so habkan orderka hab cagsi ku ah waaye so hadda arka hadda abc oo kale cagsigeeda waa maxay cba waa sidaa marka waxa laga wado row inaad ka dhigi karto Flexbox-kaaga row reverse inaad ka dhigi karto column inaad ka dhigi karto column iyo reverse inaad ka dhigi karto waa insha Allah waa arkaynaa practic ahaan waa arkaynaa Flexwrap waxa la jira ayadana arki doono Flexwrap wax kale ma aha elementation badan haysataa ama waxa haysataa container badan haysataa so mobile ahaan marka waxa rabtaa markii ay yareyso minimize ka dhigto minimize marka ka dhigto micnaha page-kaaga oo sida mobile camal u soo muuqda aad rabto micnaha in blog ahaan isku ka xigsamaan oo vertical ahaan ay ku noqdaan ayadana waa arki doonaa insha Allah waxaa jirto kaleeto no raba jirto iyo raba jirto rab reverse dhamaan waa arki doonaa abraadkeena align items aa jira in Flux container marka la joogo micnaha align items itemyadaada iyo justify content align items align dhamaan waa arkaynaa sida micnaha containerkaadii u keeni lahayd ama contentigaada u keeni lahayd centerka waaye ama dhexda so arki doonaa justify content Flux start aa jirta Flux end aa jirta center aa jiro space between aa jiro space around aa jiro space dhammaan waa arki doonaa marka itemyadan waa kana Flux start hore imaana ayagoo micnaha isla socdo Flux end gadaal aa geenaysa ayagoo isla socdo so centerka geeni kartaa space between aa dhigi kartaa kala foge space around isku soo dhaweey waaye dhammaan arki doonaa insha Allah align items waa soo aragnaa ayadana Flux start Flux end center iyo dhammaan waa arki doonaa ayagana order habkan orderka arki doonaa orderkan waa arki doonaa asne waa property waaye kamid ah propertyada Flexbox-ka dhammaan propertyada Flexbox-ka kamid yihiin Flux grow iyo Flux shrink aa jiro labadana waa arki doonaa insha Allah waxa waaye markay micnaha aad rabto in aad jiido waa arki doonaa ayadana practic ahaan ay tusaa marka waa mahadsantihiin waxa u gudugalaynaa insha Allah waxa u gudugalaynaa editorkeena hadda bilaabina insha Allah okay number 1 waxa abuurnay file html ha abuurnay number 2 na waxaan abuurnay file css abuurnay so waxa sameeynayna ugu horeeyo okay waxa sameeynayna ugu horeeyo horta shift +1 ayaa dhigaynaa calaamadii image abbreviation aan ku dhufanayna enter dhigaynaa waxa u baxsanaynaa halkan title-ka waxa u baxsanaynaa Flexbox okay sidoo kaleeto waxa abuurinaa linkiga waxa isku xirina labada linki file-kan html-ka ah iyo file-ka css-ka isku xirina okay marka style.css ku xiraa css-kayga ku xiraa html-kayga okay marka halkaan aan imaanaynaa halkaan marka imaano waxa ugu horeeya sameeynayna waxa waaye halkaan marka imaano waxa ugu horeeya sameeynayna muxuu noqonayaa waxa ugu horeeya aan sameeynayna wuxuu noqonayaa halkaan maxaa ku soo sheegnaa da percentage-ka u laabano
okay halka waxa kusoo sheegnay laba property oo ka kooban yahay Flexbox-ka labada property waa maxay container iyo items waa okay container abuureynaa marka ugu horeysa waxa abuureynaa container abuureynaa so sidaa darteed waxa sameyneynaa dot adheynaa container adheynaa calaamadan greater than-ka afureynaa kadibna dot adheynaa dot markaa dhahno waxa dheheynaa items calaamadan shift plus a da dheheysaa calaamada astaraha kadibna ilaa ay meeqa ka rabnaa marka 4 items ka rabnaa okay sidaas oo inoogu sameey macnaha sidaas aad u sameysan kartaa si qaab yar oo fudud waa ku celiyo qaabkan aan ku celiyo qaabkan yar oo fudud aan ku celiyo marka ugu horeyso waxaa dheheysaa calaamada dot-ka oo ah glass u taagan calaamada dot oo aad ka wado glass def macnaha ay sameey soo marka magac u baxsan marka glasskaaga magac u baxsan glasskayga waxa u baxsaday container greater than aan dhihi calaamada greater than-ka kadibna dot aad dheheysaa glassy ka tar rabaa 4 glass oo kale tar rabaa okay oo isku mid ah marka items waa inta maanta oo dhan glassy isku mid ah qor lahayd hal mar qoraysaa items ayaa dhahay kadibna calaamadii astaraha isticmaalaysaa calaamada astaraha isticmaalaysaa afar iyaga dhig 5 inta rabtaa ka dhigin kartaa isku mid ah 4 glass oo isku mid ah rabtaa soo maaha oo ah items waaye so container items ka kooban Flexbox-ka dhahay sida ogtihiin hal glass oo container oo defa samaystay defta dhexdeeda waxa dhex gelin rabaa 4 items oo ayagana def leh oo isku glass isku mid ah soo marka waxa isticmaalaa image abbreviation isticmaala enter hal mar ii abuuray soo hal mar markuu ii waa kana glasskii containerkii waagina waxa ku dhex jiro items ku dhex jiro soo marka sidaa darteed waxa u baxsanaa magaca u baxsanaa waxa dhahaa first item 1 magaca kato item 2 item 2 midkaan saddexaadna waxa u baxsanaa item 3 ayaa u baxsaday midkaan afraadna waxa u baxsanaa item 4 u baxsaday okay marka waa samaystay afartayda item waa samaystay waxaa samaysanay containerkii iyo itemska sameynay so hore waxa idinkugu soo sheegay hadda ogtiin hore hadda ila socoteen waxa idinkugu soo sheegay inta presentation-ka sharxay Flexbox-ku wuxuu ka kooban yahay idin dhahay container iyo items ka kooban yahay so container-kan waa weelkan guud ama sanduuqan guud ee ku dhex jiraan waa items-ka so marka items-kiina waa ku anaa waa elementiyadan gudaha ku dhex jiro waa sanduuq ku dhex jiro waa ku saddexdan ah waa so marka hadda deftan waa containerki waaye containerki waa deftan aad u jeedin waa containerki waaye sidaa darteed marka items containerka itemyadii ku dhex jiray away ama elementiyadii ku dhex jiray waa kuwaana afartan item ku dhex jirto marka sidaa ina ila socotiin rabaa insha Allah sidaa ina ila socotiin rabaa okay marka halkaan markaa marayna waxaa sameynaynaa style siinayna style okay waxaa ku hormaraynaa calaamadan oo shift plus a da dheheysaa calaamada astaraha loo yaqaano ama ku dhufashada ah kadibna style siinayna okay first waxa inoo fiican in micnaha inaan micnaha isgarab dhignaa inoo fiican si micnaha si aan u aragno shaqada aan wada qabanayno okay marka ugu horeyso waxaa sameynaynaa marka ugu horeyso wax margin-kana ka bixinaa margin-kaas okay zero dhaha wax margin uma baahni waa ku dhigay micnaha hadda ujeedin si fiican ugu dhigay micnaha waxaa kale taas sameynaynaa wax baadin uma baahni adeynaa wax baadin uma baahni okay zero inoo sii sidoo kale box sizing border box isi
okay marka hadda wuxuu ku dhegay derbigu ku dhegay wax baadin ma laha marginna ma laha sidaa darteed marka waxaa soo qabanaynaa containerkana u yeeraynaa containerkan glasskana u yeeraynaa containerkaas halkaana keenaynaa dot aa dhehaynaa maadaama glass u yahay container u baasaynaa marka style aa siinaynaa containerka okay waxaa sameynaa waxaa u yeeraa background u yeeraa background color aan rabaa inaan siiyo background colorkaa siinaa muxuu noqonaa color waxaa siinaa background color waxaa siinaa waxaa siinaa background color waxaa siinaa okay background colorkaasaa siiyey okay marka waxaa u yeeraa oo kaleeto waxaa u yeeraa itemiska u yeeraa so sidaa darteed dot waxaa dhahayaa items waa itemiskii containerka u yeeri waxaa siiyey background siiyey itemiska background siiyey ku dhex jiro so itemiska marka u yeeraa maadaama hal glass ay wada wataan itemiska u yeeraa itemiski marka u yeeri number 1 waxaa siinaa font family siinaa fartaa rabaa inaan qurxiyo font family ayaa siinaa okay font family ayaa siiyey waxaa kale taa siinaa font size siinaa size-ka fartooda kor u soo qaadaa oo waxaa ka dhigaa font size-kooda 30 pixel okay uu soo weynaaday okay waxaa kale taa siinaa waxa la dhahaa color aa siinaa colorka white iga dhig okay sidaa darteed waxaa kale taa sameynaa waxaa kale taa siinaa borderka 1 pixel iga dhig solid black colorka black oo ah default u ah isi okay waxaa kaleeto sameynaa badina siinaa okay margin ec margin 10 pixel aa rabaa inay space micnaha kala sikadaan rabaa 10 pixel so sida u jeedin waxaa kaleeto siinaa wax la hayo badinka waxaa ka dhigaa sidoo kaleeto 20 pixel okay sidoo kaleeto background aa siinaa micnaha hadda backgroundka waxaa haysta background guud ay ku dhex jiraan so waxaa rabaa itemiskan naftirkoodana background aa siyaa rabaa so backgroundkan waa backgroundka micnaha guud oo micnaha pageka waaye backgroundkan guud waaye so waxaa rabaa ani marka background inaa itemiska naftirkooda containerka waa micnaha backgroundkaas background containerka waaye waxaa rabaa itemiska inaan background siyaa rabaa okay background color aa siinaa saaloo kaleeto waxaa dhahaa sky blue colorkaas aa qaadana okay colorkaas aa siiyey okay marka waxa usoo maxaa ii dhiman marka weli flux box lama bilaabin kaliya hadda style aan siinaa kaliya flux box weli lama bilaabin okay waxaa sameynaynaa hadda maximum ka dhignaa browserkeena waa kana qaabkaan usoo muuqday so marka haddaa rabaa inaan isticmaalo waxaa u yeeraa containerka u yeeraa container markaan dhahay kadib haddaa rabaa inaan siiyo display flux markaan dhahay hal mar uu isbedelaa okay waxaa sameynaa display flux hal mar wuxuu isku bedelaa row isku bedelaa okay display flux qaabkaan usoo baxay so marka flux boxka lagu sheegaa qaabkan waa flux boxka lagu sheegaa sidaan waa so itemyadaada hab order inaa u nidaamiso oo saan isku garab dhigto so itemyadaada ama itemiskaaga saa inaa isku garab dhigto oo saan ugu habayso micnaha pagekaada dhinkaa rabta ka dhigta ayagoo saa iskula socdo qaabkaasaa waxaa la lahaa flux box aa la lahaa so marka
so waxaa isticmaali karnaa oo kaleeto halkan hore waxaa usoo aragnay halkan hore waxaa ugu soo aragnay presentationka hore waxaa ugu soo aragnay flux direction flux direction isticmaalayna so flux directionka wax kaleeto ma aha so in micnaha flux directionka wax kaleeto ma aha in itemskaagii ama containerkaadii meesha rabto micnaha row aa ka dhigi karto row reverse aa ka dhigi karta qaabkan micnaha inaan ugu dheeli karno qaabka inaan ugu dheelin rabnaa marka maxaa sameynaynaa okay oo marba saan aan ka dhigi karno micnaha ku celiyo marba saan aan ka dhigi karno mar rowga aan ka dhigi karno kor mar rowga reversiga aan ka dhigi karno mar columnka aan ka dhigi karno marna column reversiga aan ka dhigi karno okay waxaa sameynaynaa wax kale ma sameynayno halkaana waxaa siinaa flux direction flux direction kayga hadda row waa flux direction kayga hadda row waa hadda column ka dhiga sidiisa hore ku noqona soo aragtiin sidiisa hore ku noqona soo marka rowgan aawi waa kana rowga waa kana hadda ujeedin waxaa kaleeto sameyn karaa waxaa kaleeto oo aan sameyn karaa meeshaan rowga ahaan dhihi karaa row columnka ahaan dhihi karaa column reverse maxaa dhaca column reverse hadaa dhaha waxaa dhaca micnaha awal wuxuu ahay item 1 item 2 item 3 item 4 oo ahay soomaho hadda item 4 laga bilaabay item 4 item 3 item 2 item 1 micnaha so sida nambarada ay u kala horeeyeen micnaha hadana loo kala micnaha dib mariyay so item 1 oo ahay item 2 oo ahay item 3 oo ahay item 4 oo ahay so hadda waxaa ka bilaabnay item 4 usoo hormarinay item 3 item 2 item 1 u dambaysiinay meesha item 4 awal ugu dambaysay hadda item 1 ugu dambaysiinay okay maxaa kale taa sameyn karnaa waxaa kale taa sameyn karnaa marka waxaa dhihi karnaa row hadaa dhahnaa rowga defaultiga waaye display flux defaultiga wuxuu ahay row ahay so marka hadda waa kana marka item 1 item 2 item 3 item 4 waa row ahaan waaye so waxaa dhihi karaa row reverse aa dhihi karaa waa la kala hormarinaa item 4 item 3 item 2 item 1 waaye so inaa fahanteen filaa so inaa fahanteen flux direction ka filaa flux direction inaa fahanteen filaa row idinku tusi row reverse waxay qabanayaan idinku tusi columnka idinku tusi rowga waxay micnaha cagsi ku tahay row reverse waxay cagsi ku tahay rowga ku tahay so rowga haduu ahay 1 2 3 4 oo ahay row reverse waxay noqonaysaa 4 3 2 1 ay noqonaysaa cagsi ku tahay sidoo kale columnka haduu ahay 1 2 3 4 oo ahay column reverse cagsi ku noqonaa columnkii oo wuxuu noqonaa 4 3 2 4 oo noqonaa 2 1 oo noqonaa so inaa fahanteen fila okay 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 flux direction ka waa fahni okay halkan maxaa inoogu yaala flux rab marka flux rabka fahmayna flux rabka asna qaabka flux rabka aan fahano okay flux rabka aan fahmayna okay kan comment iga saar flux direction hadaa fahamtay column iga saar flux rab aan u guda galno so waxaa dhihinaa flux rab hadaa dhahna wuxuu inoo sameynaa waa arki doontiin fiiri halkan waxaa kana weyninaynaa saan maadaama uu yahay device-ka mobile ahaan markuu u muuqanaa ama irs mataqaanaa saas isku soo daba imaanaa soo blog ahaan isku daba imaanaa oo meeshaan micnaha hadda waa arkayseen flux rabkan comment iga saar si flux rabka u shaqeynaya in tusaa okay hadda aragtiin qayb dhamaa ka maqan halkan qayb dhamaa maqan itemkan afraad qayb dhamaa maqan so marka haddaa rabto itemka afraad meeshaan ciriiriga inuu kasoo baxa oo item 1kii item 2gii item 3ga oo soo hoos gala haddaa rabto si blog ahaan uu soo hoos gala haddaa rabto flux rabka isticmaalaysaa micnaha responsive oo ka dhigaa haddaa rabto waa micnaha inaad ka dhigto pagekaaga mobile ahaan hadhow markuu usoo muuqanaa mobile ahaan loo fiirinaa responsive mid oo wax walba item walba la arki karo oo si blog ahaan micnaha isku soo daba micnaha yeelaha haddaa rabto inaad ka dhigto flux rab ayaa isticmaalaya flux box waxyaabaha uu ku fiican yahay flux rab isticmaalaysaa okay hadda wuu hoos imaada haddaa ujeedin item 1 item 2 item 3 item 4 si waadaxa ugu jeednaa isla markii so marka flux rabka kaasoo kaa saacida okay waxaa kale taa isticmaalaynaa no rab haddaa dhahda defaultiga waa halkaa waxaa dhigi kartaa flux rabka ah
halkan flux wrap waxaa dhihi kartaa no wrap no wrap no wrap waxa waaye so adoo flux box aad siina adhe flux wrap adoo siina camal flux box no wrap waxa waaye wax wrap ah uma baahni waa so wax wrap ah uma baahni hadda halkaas aggeena flux wrap ma laha so flux wrap cagsiga flux wrap ku waa no wrap ka so inverse ay ku tahay okay waxaa kale taa sameynaynaa halkan noogu qoran wrap waa aragnay flux wrap waa aragnay markii micnaha arabto waaye so items badan ah haysato so arabta micnaha kor iyo hoos inaad isku hoos dhigto so wrap reverse aad dhihi kartaa halkan waxaad dhihi kartaa wrap reverse aad dhihi kartaa halkan waxaad dhihi kartaa halkan fiiriya hadda ay tusaa micnaha flux wrap markaa dhaha maxaa dhacayo wrap hadaa dhaha oo aan yareeyo minimize aan dhaha aan yareeyo so saana isku hoos imaanayaan micnaha wax micnaha maqnaana ma laha item walba waa arkaysaa haddii ay ka buuxsanto mataqaana lineka uu ka buuxsamo waa soo hoos dabagalaa micnaha line 1 line 2 waa soo hoos galaa micnaha block ahaan soo hoos galaa hadda waa aragtaa item 1 item 2 item 3 hadda kan markaa weyneeya halkaas oo galaa so markii meesha ay ku filnaa wayso hoos oo imaana waa hoos imaana so waxaa la qaabka responsive alla website-kaaga micnaha inaad ka dhigtaa responsive kan wax kale ma aho micnaha mobile ahaan device-yada yararka micnaha in hadhow markii device-yada yararka laga soo galo in micnaha website-kaada la arki karo item walba oo loo baahan yahay sidii loogu arka device-yada waaweynka sida laptop-ka oo kaleeto okay marka wrap waxaa dhihi kartaa reverse wax kale ma aha item 4kii hadda fiiriya aweyneyno wrap reverse so hadda saan ma aho item 1 item 2 item 3 item 4 waa sida saxda waa markaa yareyso oo device-ka ka dhigto responsive so maxaa dhaca item 4ka loo soo hor micnaha inuu soo hoos galo meesha awal ay ahayd micnaha markaa wrap reverse aad dhahdo so item 1 item 2 item 3 item 4 markay ka buuxsanto meeshii lineka uu ka buuxsamo so ma hoos gali jirno item 1kii so ma hoos gali jirin hadda item 1ka korkiisa micnaha galaa hadda u jeedin micnaha hadda fahmaysin item 1ka korkiisa oo galo item 4kii item 4kii waxa u baranay awal in micnaha item 1ka hoostiisa u imaado markuu lineka ka buuxsamo responsive ahaan blog ahaan uu soo hoos galo so marka hadda item 1kii korkiisa oo tagay hadda u jeedin item 4kii so itemyo badan haddii yihiin item 1 item 2 item 3 korkooda tagaya so inaad fahanteen filaa wrapkan inaad fahanteen flux wrapkan inaad fahanteen filaa si fiican u fahanteen okay waxa inooga xigo so si fiican inaad u fahanteen filaa okay tan iska minimize gareeyo okay waxaa isticmaalaynaa markaa waa aragnay flux wrapka waa aragnay waxaa soo aragnay flux direction aa soo aragnay display flux soo aragnay flux direction aa soo aragnay waxaa soo aragnay flux wrap aa soo aragnay okay maxaa kaleeto inoogu xigo flux wrap okay maxaa kaleeto inoogu xiga aan fiirino presentationkeenu presentationka haddaan fiirino waxaa inoogu xigo align items aan noogu xigo ee justify content okay waxaa ku hormaraa justify content aa ku hormaro okay halkaan waxaa iga saaktaa comment waa isticmaalay flux wrap waa isticmaalay okay justify aan dhaha content so center aa dhihi kartaa center aa isticmaali kartaa haddaa fiiriso wuxuu joogaa center waa micnaha haddaa fiiriso itemskeeni waa centerkay joogaan awal waxay joogeen halkaasay joogeen topka ah centerkay joogaan micnaha ayagoo hal mar isla socda centerka imaanayaan waxyaabaha muhiimka u yahay mataqaanaa flux boxka so itemyadaada dhammaan hal mar adigoo micnaha wada raraa halkaa rabta aad geen kartaa pagekaada so marka centerka waa aragnay maxaa kaleeta arkaynaa halkan align items maxaa kaleeta
align items aan dhahnay. So maxaa kaleeto align item center waa aragnay. End hadaa dhahna align item end hadaa dhahna ka hor aragnay endiga. Endi waxa waa halkaas dambaa lagu wada geynaa. Itemskaadi halkaas dambaa lagu wada geynaa end hadaa dhahda. Okay, sidaasi lamid eh maxaa kaleeta dhihi karnaa endi soo meehano align item center iyo endi waa aragnay. Okay, waxaa kaleeta arkaynaa endi waa aragnay. Flex end hadaa dhahna iyo end hadaa dhahna isku mid waa. Flex end hadaa dhahna iyo end hadaa dhahna isku mid waa. So in aragteena filaha waxaa kaleeta samayn karnaa flex endi halkan ah. Flex endi halkan ah, flex start hadaa dhahna hore imaanayaan. So start adigoo dhahay waay. So sidaas u maamuli kartaa. Okay, maxaa kaleeta samayn karnaa justify ku jirnaa property-gaas oo kamid ah flexbox property flexbox. So space around ya dhihi kartaa, space between ya dhihi kartaa, left ya dhihi kartaa, right dhamaan adaa ku baashaala. Okay, space between hadaa dhaha ka war. Space between waxa waaye mid kasta space u dhaxeeya waa la kala fogeynaa. Ayaga dham afartii item oo isla socday hal mar oo hal side ay geenini mid kas property walbo. So hadda waa la kala fogeynaa. Waxaa dhahay space between. Justify content space between waa. So item 1 waa kana, item 2 waa kana, item 3 waa ka, item 4 waa ka. Okay, space between waa aragnay. Waxaa kaleeta arkanaa space around ya jiro. Space around ya jiro aragno. waa kana macnaha space between space around waxay kala duwan. Around waxa waaye space yar, macnaha waa la isku soo dhaweynaa itemyada space yar u dhaxeynaa marka. So darbiyada ku dhaganaa awal space between waxa waaye left to right waa left to right and right to left ahay. So hadda kan waxa waaye space around waaye. So waa around waa la isku soo dhaweynaa, macnaha space isku soo dhaweey u dhaxeynaa. So waxa ka samayn karnaa space around space evenly. So same waaye. Okay, waxa ka samayn karnaa marka waa aragnay afartaas intaas ugu muhiimsan start end flex start flex end. So space between space around center dhamaan ina fahanaa filaha. So dhamaan ina fahanaa filaha. Okay, marka okay marka waxaan rabnaa marka hadda waxaan rabnaa marka waxaan rabnaa marka haddan justify waa aragnay. Okay, maxaa soo aragnay saaxiibayaal waxaa aragnay align item arna marka anaga hadda waxa ku hormarnay justify content center ku hormarnay. Align item isal rabaa ay align content. So align item iska maxay qabanayaan align item iska laakiin marka rabto hadda marka rabto align item inuu ku shaqeeyo hadda kuma shaqeynayo. So wax malaha macnaha. So waxaa jira waxa la dhahayo width iyo waxa la dhahayo height. So height ma laha. So height ina sameyso waaye. So height marka sameyso isticmaali kartaa align item center ama align item isku waxa la dhahayo isticmaali kartaa. Okay, so waxaa ku dareysaa containerka ku dareysaa so waxaan rabnaa align items ina isticmaalna rabnaa align items rabnaa ina isticmaalno. So align items marka isticmaalayno oo height siinayna horta marka hore height iyo width waa taqaani sida fila hore u soo aragnay labada property. Okay, height siinayna si macnaha center meesha rabnaa u geeyno. Okay, first waxa isticmaalayna center isticmaalayna. Okay, center igi waa kan hadda aragtiin itemskayga waxaa keenay centerka keenay. Okay, sidaas la mid ah waxa ka taageeni karaa India geeni karaa. Okay, hoosa keeni kartaa. Sidaas la mid ah flex self India sameyn kartaa oo halka hoose ah. So flex India so dhamaan isku mid. So waxa ka sameyn kartaa align items. So align items waxa ka sameyn kartaa start ya geeni kartaa flex India dhamaan waxa dhama isticmaali kartaa. dhammaan isticmaali kartaa oo aad ku baashaali kartaa. So centerka inoo geey. So sidaas ugu baashaali kartaa.
marka soo isticmaalay justify content flux start soo isticmaalay flux end center space between space around dhammaan waa soo isticmaalay so align items waa soo isticmaalay asne flux start flux end center dhammaan waa soo isticmaalay align content waa soo isticmaalay orderka waa kana orderka waxa waaye wax kale ma aha so tirooyinka waa numberska waa orderka 1 iyo 2 iyo 3 4 numberskaaga meelaha sida harta inaad u kala order garay karto waa aragnay so waxaa jira flux grow waa jiro iyo flux shrink aa jiro flux grow wax kale ma aha flux shrink iyo flux grow waa arkaynaa okay aragno okay waa arkaynaa flux grow flux mina flux grow waxaa siinaa 2 okay flux grow wax kale ma aha markaa kala bixinayso micnaha waxaa arkaysaa in micnaha mid kasto item walba micnaha jiid maha arkaysaa flux grow allah waxaas item walba inuu jiid ma hada ujeed micnaha flux grow allah so flux grow wax kale ma aha markaa micnaha rabto in micnaha sidaan aad dhaweyso tusaale keeto wuxuu ka saacidaa item walba inuu jiid ma micnaha flux shringiga wax kale ma aha wuxuu ku yahay cagsi ku yahay flux shringiga okay aragna asna isticmaalno flux shringiga cagsi ku yahay asna aan dhahno tu isticmaalno waxa arkaysiin so waxa arkaysiin markii aan minimize garina inuu weynaana asna kala baxo ay arkaysiin so marka saan aad ahna wuu yar yahay aad u yar yahay laakiin markii aan isku keenno oo aan ka dhigayno responsive oo kaleeto sidaas u weydana micnaha cagsi wuxuu ku yahay flux grow wuxuu ku yahay cagsi uu ku yahay insha Allah cashirkeena halkaas uu ku eegaya flux box in la fahmo fila si fiican loo fahmo fila insha Allah si fiican u fahamteena fila